Mike Braden oo ah la taliyaha dhanka istiraatiijiyadda ee macadka Sahan ee fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waraysi u siiyay warbaahinta qaranka Itoobiya wuxuu si cad ugu sharaxay sharciyada uu ku taagan yahay heshiiska isfahan ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya. Braden ayaa sheegay in aanay jirin wax sharci ahaan ka khaldan heshiiskani isla markaana Itoobiya ay adeegsanayso xaqa dal waliba u leeyahay inuu aqoonsado dal kale. Braden ayaa intaa ku daray in shuruudaha dal lagu aqoonsado ay yihiin kuwa cayiman oo adduunyada oo dhan la yaqaano kuwaasoo kala ah in dalkaasi leeyahay dad cayiman oo la yaqaano inuu leeyahay dhul uu ka taliyo iyo in dawladdu awood u leedahay in dhulkaasi ay ku maamusho xukunkeeda. Soomaaliland ayaa yiri saddexda shuruudood baa ay buuxisay. Waxa uu sheegay in Soomaaliland ay jirtay in ka badan 30 sano ay ku naaloonayso xasilooni haddii ay Itoobiya aqoonsanaysana ay iyadu xaq u leedahay. Soomaaliland waxay la mid tahay dalalka Koonfurta Suudaan, Eritrea, Jamhuuriyadda Yugoslavia ka go'ay iyo kuwii ka tirsanaan jiray Midowga Sofiyeeti kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah la aqoonsaday. Arrinta kaliya ay Soomaaliland kaga duwan tahay ayuu yiri waa iyadoo xornimadeeda kala soo noqonaysa dal fashilmay 20 sano u dambeeyay isla waqtigan lagu jirana aan lahayn dawlad tayo leh oo dhulkeeda ka wada talisa. Ta ka sii daranina waa jiritaanka dawladda ka dhisan Soomaaliya oo aynu ognahay inuu ku xidhan yahay ciidamada shisheeyaha ee jooga dalkaasi oo kuwa Itoobiyana ay ka mid yihiin iyo waliba caawimada ka badan $2 bilyan ee ay ku bixiso beesha caalamku. taageerada la'aanteedna waxa isweydiin leh sida ay u ekaan lahayd ama noqon lahayd dawladda ka jirta Soomaaliya. Sidaa daraadeed marka xaaladahaas oo dhan la eego ayuu yiri Mike Braden ma jiraan sharci ahaan wax ka hor imanaya in Itoobiya aqoonsato Somaliland.